gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Madaxweyne Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo geeka kulanka la qaaday magaalada Baydhabo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed kulankii oo baa qayb galay xildhibaan ku tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku dooraday deegaanada Koonfur Galbeed wasiir iyo mas'uuliyiin shirkadiisan kulankii boosay koonto badan oo ku hadlay dhibaatooyinka ku dhibay Baydhabo xilligii darartii doorashada Koonfur Galbeed dhammaan odayaashii goobtaasi ku hadlay way gudoomiyaha ku osanaa inta si degdeg ah lahandii Sheekh Mukhtaar Row Ali oo Mansuura dulmiga iyo dhibaatadii shabaab dalku ka hayno oroodi xogagaal inuu soo ku qabado koral ogi jeelan kala reeyo gulku jeelimaayna in arintun dhibaatadan dadkan jiditay shal hirin maatun hamiige hantadii la hirhiro la dhamaayo hay maag laga gooriyo hay difaac sheeni soo ku gada ya dadka madis kooyin ku ballan qaaday usoo musharax ban hayn hal ila dhaweelahay dawladda madil fahmo wayti shacab shay ma ogolaadana in garabka siyaano la dhawaa afar boqol qofood oo hooglanka sheegna uu sahagili ya dhagan alin in soo taatib roog khasaarihi dadka deeri iyo dadka bogtaali wala isku ar ku baad dalku unu leh walay maamulkii dad lanaga tay dooradeen sala la shaqeeye sala wala may wax tilaabo kala dhimo wali dadka ka maslaha fadeen oo mutaka daga fadhi hatta adoo madaxweynaha adoo wakiilku madaxweynaha baarlamaanka walaalkan ata gudoomiyahan ata un adikiin dhiibnay un adikiin dab surmaan may ko fadaane Sheekh Mukhtaar baa la fadhiyo haajada ku qeyb gala may fadaane xildhibaankii sharqoolku uu sheegan la dili raadi la gala sidii dawlad wala galaasi la gala walaalkan siraajin hor la dili laakiin dili mal dilo la ogayno un dadkan qiimo ma leh kumada deeridaasay ma isku sheekayaan Sheekh Mukhtaar taariikhdu Soomaali nidaamku Soomaali processku ka kooy wala kudhi wala ka qabadi wala usdama sanay wala umatu ilaahi no min dama sanayti shiris wal mafadaan wala weeri geedusiga kooy wala nagoyle dadkii aan weeri umatu Soomaaliyeed shacabka wadanka roog wala ku qabay wala roogi hadisad xildhibaankii dhimadi dhibaatooyin badan kala la suubi rignimo lamadana dhimadan baraka oo deegaanka uu degnaynay kaarhaan magaalada madii magaalada tan lamba meelo amba badade xaafado beelun reer leysaamed am badanayti dhibaato kaas iyo nay waarday kaas iidan kaas adijii dhibaatooyin badan ku dhii dada ku guuray baadiye an guuri antaas iskaban dhibaatadaas ay qabna Sheekh Mukhtaar qobdo shay wada loogaa wala hoosna dadkii inta roogiya og oo shalay is aragnay madaxweynaha Koonfur Galbeed sabaan nabadeed oo bilaaw yani hirigaadani shaqini herti shaagni shaqadani herti madii una shaagni antiib arintaasba wal ku damboyaan sheegana meedi shalay gaatini leegaati anatan aw ka shalay bashagdana shumu ku armeeraan hoodan haynana baarlamaan saas waay madaxweynaha la maadayd wadanka dadkan ka sareylankii koowadlankii la maadayd un dadkan oo lanka mogon qabsadi federaalku waay faanol farmo ku godan waay wali fadaane widaadkii hirinaay la hadhi unu dhanga noo hirinyi gaar ahaan digri mirfle ku hirinyi unun gee oday hamin habarabara la reekisto idoobu ku jirid min ka jirada galya kisto dib ka saameeyo taas daraadiye waan hadalaana ma isin masin ku hidin wali fadaane wilaadka soo arantis in la fududahay anta dib malka fadaw nabadal ka fadee ilaahay roob leeysan ol ma fado hayt hadalka dhibaatada iyo nay wala oo nay tahay oo dibkeen lanjeysday saamay yeeda wali waxa ku kati umad badan balakahay umatalamid walikin sheegane in widaadkii la hadhi dadkii horta aragnayna saasa erni hatana adeen wali kalana widaadkii hadhiyo isinsiin ku fade dawladda federaalka ku fade kan tan Koonfur Galbeed ee shacabsha un gadaaleen isin haysatan isin no qabsatan isin no amarkin la ka gobol
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Madaxweyne Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Yuusuf Meelaase ku hadlay kureed markii isu dhugun si tabashooyinkii hojjeedin odayaasha way banus ballan qadeentay Mukhtaar Roobo la hadhay doona waan isku hadleen dawladda Soomaaliya oo san koray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Abdullaahi Farmaajo soo odayaasha dhaqanka oo inta guddi dhan shan qof iyo isku dhax saaran si loo wada shaqeey hadhiyo ka shay Mukhtaar Roobo oo Mansuur Yaare markii la kulantaan wali ballan qaaday in dadkii dhamadii diidiyo la dhiibo dadkii dhaawacmay walaagi dhibadeer la ku dhay في نفس الوقت مختارنا اللي حديه markiisa la kulanteen madaxweynaha koonfur galbeed Abdulaziz usuun wali ballan qaaday in Mukhtaar la hadhii wal walaay dhibaato dhiyana la daaway ana wali gabe ani Abdulaziz ba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadon ka dhaladay arlaadon nasab sheegdaan wali ilata ani Abdulaziz oo sajarna bahdi Mukhtaar hadhii waayna kuraasta ka fadhije والكلو أنا ولي من سنها ديجي أسجاي وقتها سيني جري لي مختار أنا ولي سين بلن قاضي واحد دي تنكلنا أنت أنا هم بنا رجل الوزراء مدحوينها كل فرد هذه أرنتاسي السن نفتتي دي أقدين مختار لان ولي هاي لان مسؤولي هاي حقيقة دي arintun markii dheedi oo lankii luwedi oo la jeey la gobaday la hiray hegel jeey walaayo ku dambooy caalamka dhan qayli wana wali la swarsaday sababta oo uu salaka doorashadii iska fadheeda waay oo anti la hiri meel lanjeey su'aal badan oo dawladda ka wajahan nagati hadii international ka gudbi lahaayeen fariin ka gudbi lahaayeen iyo hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary general ka oo United Nations ka mathalay haysan xiljeey wali ku waayay Mukhtaar marka dinigo markiisan feeridan Mukhtaar dad badan oo noomade dabka hadda jara hadii oo lan feeri wala hadana hay madila feeri lanka walaalkana ee meeyda ka jara inuusan dhax kooy oo walni la xali anigii kuli aaminsanaha qoob oonayto internet fadhiilaysiin sheegasan inta walbadan aqleena hadii kordhi lahay walbadan inoo furfur lahay laakiin wali siin ballan qaaday waana wali hube Mukhtaar way hadhiye wali dareere processki oo la dareertan lankii odaygahay oo mas'uulkaay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumade مسؤولين تكمل مسؤولين لنديبي دولة فدرال كنا كذاي مسؤولين نقدر دونا أنا مدي أنا نقدر قوة هذا لنا لكن مدحوينا ولي هسلقوا عن سنة رئيس الوزراء هسلقوا عن سنة مختارين لهدي مثلا كل شعب عادي أنت إسكوباي حافظوا بكارو حافظكم مدة يدقي يعني حالين توما يسور صداي أنا مختار جمري أقوم والله لكن مركتين بلما جور سدجور أفرجورا كلنا يعني لما جور عملنا أصلقائيني لقيت مسكنتيس إن شقيسو إيد ندقمو ودجيل ومطن إن والنجا تفضاو أرجوه عدو جيك سدن إنجلي لم فضاوي إن ومطن كأنما هيري جميس إن صارنتا مختارن عبره مركيس نعرقدان جيمر يدي أو مدرسة سبهاي يا ميلو والفوقال دمين runtii eedana madaxweynaha mararka bariye markii warsataan eedda dad kale saareen qalad wali dhiyay ogda mararka bariye wali dhiyaasay qof oo aad islata ama garaadye eedan sareey oo wal maamul koro oo markaasina level kilinka tala gali isan hayn hal shay horta eedan ku xumo oo in wal alla walaay information oo ka saabsanay Mukhtaar markii hoolis dareerti inuu soo xamarha ku baha oo uu Baydhabo kooy in Baydhabo kooy markaasii kadib murashaxa era lankii mas'uulka hulasay ku hay misleading soo bi walaan gaalada eraas oo wala dareera wal kala anfasiray markii wali jeela tolka ka aan inta la fadhiyo wali joo lead ka wali hayna oo digili marfla ilaa hadda leading role na haysatan
alin baahana marka odayaalka oo intani la fadhi oo ixtiraam weyn oo neele mas'uuliyadda lay gobolnimada dadka barje inta fadhi no leeying mas'uuliyadda ixtiraamka wariga ka wada shaqeey doonaan damaanadii aan siinsiye muxtaar oo wali hadda en dheegi lahaytana hadii hadda muxtaar la siin duwaasi maxamed mursal wali liya ani ku wakiil liya saweelan ho bartaan muxtaar jawaabtiis wali naga dalaaytay maxamed mursal kelmad usari wala ani siin xaqiijiya regentii la fadhiyoona garaayan oo isin hadda hindhooyin ahayn akhyaaray doog wali ka gabagabeeyay runtii shalay arrin fayle ayaa la suubi madaxweynihii oo South West isagoo is jartaan 70 bilawka ay la qaaday unoona xalay farax la jiifado waayni tan higdo wali nagadaas sidii dadka dhamadii la daaway lahaay video lambi lahaay walay dhaawac diiri la daaway lahaay muxtaar oo xaadir roogana uninoo ka saasan process ka dhatun markun walna uninin taala oo macnaheedu wali waqtiga time ka mushkilad time ka markun wali nagaday in waqti oo una isla fiirinay waydiya laakiin in dad akhyaar kooban dhowr qof oo kumid may la raasreelay sameed dadka dhan wali waa lamba meelo ku aadinyo bulshadu oo hooli isla wadna oo dhiyooki iyo qaabka markii la hadhay usnagadaw processkaas wada dhameystiran horta insiin ku helna eeda anjeela shan qofood nagatoy sidii nagatoy afar nagatoy dad isan han xil saarteen iyo madaxweynaha koonfur galbeed antaana madun hoolum herti wala heri una nin dhaafo jeelna gemaridi tanta guud ahayti laakiin fulinta shay qorshe markii la dajiyay wali baahnya qorshaha la dajiyay fulinga baahnya qorshaha la dajiyay dadka fuliyow iyo dadka marka hor qorshaha la isla dajiyow qorshaha wali ku yaabay marka hore maskante wala ka jar in la aruuriyo aniga hadda qortay wal hadikado aan qora wali ka liftay in aan walaagi oo la wada hadalay aan in qoranaadan soonaytoy fulintiyo unan ka gudubna marka doogay wali gabagabay codsaday in dad kumid dadka inta fadhi akhyaarti ana ka saay dhowr qofood isan magacaawtan wal alla walaagi la kula hadalay سنين كل شقيان فلنتي ونفليان إن شاء الله تعالى فلنتني كل شقيان أنت أسيك جب إيدي هذا ما سنتي. مقالة بيدبه هرنتو قبل كباي ومدين كديم بكودرة كل مرة هذا هدي سوى كاسي هريوسن كتواقي مدوينك الدولة قبلات كونفور قلب الصومال مدني عبد العزيز حسن محمد لفت جرانا فيصل داوسن KGS TV مقالة بيدبه.